الله الرحمن الرحيم dadweynaha sharafta leh ee halkan isugu yimid xafladda dhigay iyo dad ka soo qayb galay intaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inta ka bacdi sabaqarka loo sheegay waan soo dhaweynaa horena wuu soo dhaweynaa haddana waan soo dhaweynaa oo taaganaa musticidiin baan u nahay hablo iyo hooyooyin iyo odayaal wixii xafladdan dhigayna waa mahadnaqaynaa ilaahayna nabadgelyo ka baryaynaa dhammaan dadweynaha halka isugu yimi ee reer goob ee xafladda soo qabaqaabiyay way mahadsan yihiin waanu weydiin mahadnaqaynaa annaguna waxaanu wadnaa boqor muuse bokor bari oo la yiraahdo maxamuud habar jacab bari maxamuud khaliif jubbe kaas annagu nahay taageeradiisii inta halka fadhiyo waa taageeradiisii baanu nahay waanu ogolahay waanu ku kalsoonahay halku rabaan oo gaarsiinayna inta ka dhiman oo dhameystirayna insha Allah bina kariim ila hal ogaado dhammaan dadweynaha hadu baa la yiraahdaa oo waafaqsan cid baa ka maqlay waa loo dheeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadweynaha sharafta leh xafladan sharafta leh ee quruxda badan ee reer goob caadada u ah aan cid ku gaadhin ay halka ku qabteen boqor maxamuud khaliif dubbe boqorka habar jeclo bari oo ilaa silcaro ilaa muxuu ah ceelaf weyn ilaa aaga oo dhan looga soo qabtay xaflado taageero ah calaamad saarkii caana shubkii waa dambeeyaa ilaa 30 meel goobood oo habar jeclo bari leedahay iyo tanu shan ka tahay 25 baa hadhay 25 ka markay dhamaato iyo xafladda meesha goobta la isla qaadan doona ay noqon doonto insha Allah waxay noqon doontaa goob sida habar jeclo bari ay ninka u soo calaamad saartay ee halka uu keentay Soomaynaan qaadan haddaynu nahay reer goob ama Abdurrahmaan bari Soomaynaan qaadan oo lama qaadan marka waxaan u sheegayaa dadweynaha dhammaantii marka xafladaha quruxda badan ee soddonka ah dhamaadaan habar jeclo bari oo qurba joogii waxay u kareeyeen satellite bay ka kareeyeen dayax gacmeed bay ka kareeyeen rushiinaha kaasaa lagu gabagabeynayaa dayaxa guudkiisa lagu soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waxaan ka salaamayaa madaxda sharafta leh ee hogaaminayaan cali khaliif maxamuud dubbe oo aan doonayno inaan boqorkayga ka dhigno insha Allah khayr haddaan nahay jiida ilaa xiis ilaa afaaf goob ahaan kan joogna waa goob waan isku raacnay inaan soo dhaweyno waan ku mahadsan yahay wixii galbinaya wixii wadaba raali baan ka nahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan dadweynaha reer goob ee xariban sharafeedan qiimaha iyo qaayale u sameeyay boqorka boqor maxamuud khaliif waxaan aad iyo aad inoo salaamayaa boqorka iyo waayeelka la socda aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiin waxaan boqor salaan qiimo iyo sharaf leh aan kaaga sidaa dadweynihii aan maarka magaaladii aan ka raqas iyo dadkii reer gubanba waxaan doonayaa salaanta inaad naga guddoonto waxaad kaloo naga guddoontaa boqor in ay halka ayna aan dhawaan lagu calaameen kugu casubi doono oo casumadana xariban sharafeed iyana aan reer raqas aan kaaga sinaa casumadana naga guddoon inta kadib boqorkoon taageersanay ilaahay ha kugu asturo xilka lagu doortay waanuna ku dooranay insha Allah calaamad saarkana waan ku soo qayb gali doonaa hadii ilaahay yiraahdo waa boqorka habar jeclo bari calaamad saar wuu ka badnaanaya inta tan calaamad saar buu noqonaya xaflad weyn oo buu noqonaya hadii ilaahay yiraahdo waanu ka soo qayb gali doonaa hadii ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan ku salaaminaa ha insha Allah diyax gabeedkaana lagu soo gabagabeyn doonaa hadii ilaahay yiraahdo ilaahay baa mahad iska leh marka labaad waxaan u mahad celinaynaa dadweynaha sharafta leh halkan isugu yimid xafladan quruxda badan la soo agaasimay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin annaguna haddaan nahay wafdida la socota boqorka beesha habar jeclo bari maxamuud khaliif dubbe waa aragtaano da waa qaadanay waayeelkiina maanta halkaa waa ku dhan waxaa la tahay isha macallina reerkii waa aragtaan halkaas ku leeyahay sidaasaan ku qaadanay oo uu boqor ku yahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad u hambalyeynaa
soo dhaweynta ay nagu soo dhaweeyeen dadka ku nool magaalada ama deegaanka goob hablo dhalinyaro waayeel nooma kala hadhin sida ay noo soo dhaweeyeen waanu uga mahad celinaynaa waa dadkayagii waa dhulkayagii waa beerahayagii sida wanaagsan ay noogu soo dhaweeyeenna macsuumadii horeba sidaas si la mid ah baan ku soo dhaweynayay laakiin tanu waxaad moodaa inay ka duwan tahay oo waxay kaga duwan tahay waxa weeye halkii laxdi taalay halkanu waxa weeye inay sidaa darteed waynu ducaynaynaa ducada ilaahay ha inaga aqbalo ilaahay cirka madar khayr qaba ha inooga shubo ilaahay waalidiinteenna ha u naxariisto ilaahay qulubteenna ha isu soo jeediyo faataxa